شهر الجود مع الصدقات، شهر العتق من الجمرات، تضاعف فيك الحسنات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal halkaan naga dhegeysanaysaan waa idaacadda qur-aanka kariimka. dhegeystayaal sidan hore idinku ballan qaadnay waxaynu goordhow idinsoo gudbi doonaa muxaadaraad ka hadli doona axkaamu siyaam, soonka iyo axkaamtiisa. فيك نصوم وفيك نجاهد ونعمر في الأرض مساجد، ونعمر في الأرض مساجد وننفذ أمر الرحمن. شهر الخير وشهر البر يا أجمل أيام العمر، شهر الخير وشهر البر يا أجمل أيام العمر. dhegeystayaal mar labaad halkaan naga dhegeysanaysaan waa idaacadda qur-aanka kariimka. iminkana kusoo dhawaada qaybta koowaad ee muxaadaraad ka hadli doona axkaamu siyaam, soonka iyo axkaamtiisa oo halkaan noogu soo jeedin doona fadiilatu shaykh maxamed cabdi umal. من صامك قد صام الدهر وارتاح بظل الإيمان. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد. يا شهرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله تبارك وتعالى أيام هذا السكله إنه نعم إن تركوا بكرين وأيقوا انتهي إنه نقدر ضد مسلمين وأهل الدين oo alla yaqaano tabaaraka wa tacaala inay caabudaan ku dadaalayaan. markii soon aad soomi rabto waa inaad barato soonka iyo axkaamtiisa. haday salaadii timaado salaada axkaamteeda waa inaad garanayso. haddii xaj iyo cumro timaado waa inaad xajkii iyo cumradii intaadan aadin aad axkaamtoodii barato. haddaad doonayso inaad ganacsato waa inaadan ganacsiga intaadan faraha la gelin aad barato qaabkaad u ganacsan lahayd. maxaa ilaahay kuu xalaaleeyey, muxuuse kaa xarimay. waxaana jeclahay inaan axkaamta muhimka ah lagama wada gaari karo, laakiin inaan kor maro tafaasiil fara badan wakhtigu ma saamaxayo. masaa-isha aan sheegayo adiladeedii inaan soo wada arooriyana wakhtigu ma saamaxayo. waxaanse isku dayayaa insha allahu tacaala inta ugu badana wakhtiga aan ka faa'iidayn karo masaa-isha inaan kor maro. إذاعة القرآن الكريم أجمل رمضان. أحكامta muhimka inaan ogaano u baahan ee laga maarmaanka ah waxaa ka mid ah bisha ma banaana in maalinka ka horeeya iyo maalinka ka sii horeeya in la soomo ma banaana. waxyaabaha muhimka waxaa ka mid ah axkaamta laga maarmaanka ah habeen kasta oo bisha ramadaan ka mid ah waa inaad niyeysato soonka. xadiis nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidkii cumar ibn khataab fi saxiixayn waa ka rasuulku yidhi innama alacmaalu binniyaat wa innama likulli imri'in maa nawaa. camalyaalku waxay ku xidhan yihiin niyooyinka, ruux walbana wuxuu niyeysto unbuu leeyahay. camal aan niyo lahayni camal jira maaha. saas daraaddeed ramadaanka habeen kasta waa inaad niyeysato. xadiidkii xafsata binti cumar baa isagana wuxuu ahaa nebigu yidhi sal alay wasalam, ruuxii aan habeenka intaan waagu bariyin aan niyada bariisiininoo habeenkii aan niyoonin soon ma laha buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. marka waa tiir asaasi ah niyaduna macnaheedu waxa weeye waa doonitaanka qalbiga, yacni qasdulqalbi wa iraadatlqalbi waaye, casiimatlqalbi waaye. meesha ay niyadu ka dhacdana waa qalbiga. xubinka sameeya niyada waa qalbiga. carabku shaqo kuma le siday gacanta iyo lugaha iyo indhaha iyo dhegihii ayna shaqo ugu lahayn. xubnahani shaqay kala leeyihin. haddii la yidhaahdo qasad iyo niyo, haddii la yidhahdo iyo doonitaan qalbiga shaqadiisa waa camal qalbi waa. sidaas daraaddeed ciddii tidhi oo culimmada ka mida niyada in afka lagaga dhawaaqaayo waa sunno waa khaldameen. sax ma aha, leanna niyo afka lagaga dhawaaqaayo ma aha, yacni waxa weye nebigana kama sugna salawaatu rabbi wasalaamu calayh. sida sawaabka marka waxa weeye qalbiga unbaad gashanaysaa inaad berri soomayso soonkii waajibka ah. haddaad suxuurato waad niyeysan tahay. haddii uun muddo gaabanoo habeenkaa ka mida qalbigaaga inaad berri soomayso ay ku soo dhacdo, niyadu waa intaa, wax sii culus ma ah. niyada qalbiga ah iyadana waxa weye waa shay muhim ah oo habeen walba in laysku taxallujiyo inaysan insha allahu tacaala aadan halmaamin. iyadana intaan waagu baryin ayada waa qodob muhima asaasiya wey. في العام الواحد
فيك نصوم وفيك نجاهد يا شهرا. dhegaystayaal inta ayaynu kusoo gebagabaynay qaybtii koowaad ee muxaadaradii ka hadlaysay soonka iyo axkaamtiisa oo halkaan nagu soo jeedinayay fadiilatu sheekh maxamed cabdi umar. halkaan naga dhegaysanaysaan waa idaacadda qur-aanka kariimka. dhegaystayaal intaynu ku kulmi doono qaybta labaad ee muxaadarada waxaynu idinka tagaynaa sidaasii nabadgeliyo. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. الخير وشهر البر يا أجمل أيام العمر، من صامك قد صام الدهر، من صامك قد صام الدهر وارتاح بظل الإيمان. شهر الخير وشهر البر يا أجمل أيام العمر، شهر الخير وشهر البر يا أجمل أيام العمر، من صامك قد صام الدهر، من صامك قد صام الدهر وارتاح بظل الإيمان. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد، ونعمر في الأرض مساجد، ونعمر في الأرض مساجد، وننفذ أمر الرحمن، وننفذ أمر الرحمن، وننفذ أمر